kufur qalbigaaga xiran furayaasha cafinta oo garaac albaabada idin dhaxeeya adiga iyo dadka haddii ay hore u furi waayaanna dardiinka u saar zahuurta iyo ubaxyada aad wado kuna dadaal in adiga iyo dadka uu idin dhaxeeya qalbi saafi ah iscafiya sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo wanaag ah oo ku labisan bani aadamnimo iyo naxariis oo gudaheena ku jira sidoo kale waxaa jirta fidro qalbiyadeena ku abuuran oo aanan ka warqabin haddaan ogaanase waxaan garan doonnaa in haddii si kasta loo caroodo caradu ku demi doonto daqiiqado kooban si kasta oo loo qaldamana qaladka waa laga soo noqon doonaa iscafiya ramadaan maalmo kooban unbaa ka laabane ma waxaad doonaysaan in bishii khayrka iyo wanaaggu idiin soo gashay iyadoo walaal kale qalbigiisa xiqdi iyo xasidnimo ugu hayo nebiguna sala allahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inaysan bannaanayn inaad walaalkaaga ka hijrooto ama aad ka aamusto wax ka badan 3 maalin wuxuuna sheegay nebiga sala allahu calayhi wasallam inuu khayr badan yahay kan ugu horreeya ee salaanta bilaabay kala hijroodkoodii kadib soo saar waad saariye saar oo dibadda soo dhig qaybta xun ee qalbigaaga gaadhay ku kab oo ku dheji allaha kugu kaalmeeyey ku dheji qalbigaaga qaybaha wacan walaalayaal aan furno bog cusub oo cad lagana fogeeyey xiqdi xasad xumaan iyo xamba cafi oo saamax qof waliba oo ku xumeeyey cafi oo saamax cid waliba oo kugu xadgudubtay cafi oo saamax cid waliba oo wax uun idin dhex mareen iska cafi dhammaantood allah kuwa wax cafiye waa uu jecel yahay ugu dambayn allah waan cafiyey qof kasta oo muslim ah mana jirto qof aan wax u qabo allah waan cafiyey ee iyagana cafi aamiin yaa rabbi